madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galaya shir madaxeedka joogtada ah ee 13aad ee IGAD ayaa soo dhaweeyay qorshaha dib u habeynta urur goboleedka IGAD oo ay isku raaceen madaxda ka soo qayb gashay meertada dowladda federaalk Soomaaliya oo garowsaneyd fursadaha horumarineed iskaashi iyo ganacsi ee muhiimka ka dhigay dib u eegidda lagu sameeyay qaab dhismeedka ururkan waxay markasta u ololeysay in IGAD ay noqoto madal ka soo dhalaasha himilada ay ku qabaan shucuubta gobolka kana turjuma dhammaan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dowladaha ku mideysan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD mudane Cabdalle Xamduuk oo ah ra'iisul wasaaraha dalka aan walaalaha nahay ee Suudaan ra'iisul wasaare Cabdalle Xamduuk ayaa waxa uu xubin muhiim ka ahaa guddiga dhaqaalaha qaran ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ka hor intii aan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha ee dalka Suudaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu soo dhaweeyay magacaabista xogayaha guud ee IGAD waxa uuna adkeeyay in dowladda federaalk Soomaaliya ay si dhow ula shaqeynayso hoggaankan cusub si loo gaaro higsi muhiim ah oo ururkeenaya arrimaha tabinta u leh awoodsiinta gobolka dowladda Soomaaliya waxay kaalin mugle ka qaadatay aasaaskii urur goboleedka IGAD haatan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed waxay ku taagan yihiin gudashada doorkooda iyo wax la qaybsiga dalalka kale ee qaybta ka IGAD